bulshada ku dhaqan magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayaa ka hadlay nadaafad xumada soo food saartay gabi ahaanba magaalada Ceerigaabo iyagoo baaq u diray golaha deegaanka ee magaalada Ceerigaabo iyagoo ay ku eedeeyeen golaha deegaanka ee magaalada Ceerigaabo kuwa uu soo shaqo taga golahaasi ama xafiisyada dawladda maxay ha cunina waxa ku dul cunina dadka sida tan ha ku dul joogine iskaga tag aan ahayn xilkaaga gudo odayga in xaaji nuur waxaan anigu oran lahaa waxa weeye xafiiska uu ha fadhiin yaa lagu soo ragga kan ka dul shaqeynaya ee aad mid walba aad wuxuu xil saartay dabagal oo aad adeerada u tahay inta kula reerkaaba isku xirxirtay taa kugu xamanmayna waa muuqataa waxa weeye halaan dawladda hoose waxaan kaga cabanaynaa cashuurtoona ku dhamela xoolaha aan qaymadooda la eegin waxaan kugu yiri wax way doxaala wixii afkooda ka yiraahdaan lagu bahalkeeyo waxaan kaloo ka hadlayaa waxaan kaloo dhan busaameyn ku yeelanaya halkana ma aha magaalada oo dhan marka waxaan leeyahay dawladda hoose aan cod dheer kula hadlaya ugu horeeyo maayirkeedu maxaan sheegay magaalada waa ka qaadaan maxaan sheegay agoomaha waa ka ururiseen maxaan sheegay waa ka ururisaan oo albaabada kala baxdaane magaalada ka hagaajiya qashinka oo maxaan sheegay shaqaalahan aad u soo diraysid kula xisaabtama oo dadka laga qaado qashimada laga qaado magaalada waa caasimad horumarkeeda marka dambe horu maraya hadana waxa moodaa qaybta dawladda hoose inay dib u socod ma ahaane aan maxaan sheegay horu soconayn inamadana waxaan leeyahay Ismaaciil Xaaji Nuur ma inamada neefka argay waa $100 baan la ka siiyaa isma bixinayaan isma bixinayaan hadana anigu argan qalan jiro waan iskaga tago ma qalo waan iska daayay sababta waxay tahay horumarkeena dhimeen oo iska kay bixin waayo dawladda nagala hadi weeday oo waxaan ku dilaarsado doono uu noo galo waxaan ku neefka qaymadan neefka ariga 10 ku baan la ka qaadaa cashuurta miis kale ku baan la kaga qaadaa waxa weeye $10 iyo $100 sanadkii waxaan la ka qaadaa $260,000 oo lacag baan la ka qaadaa oo liis cidla baan fadhiisanaa cashuura waana la ka qaadaa fiiqa idinagaba gurto anaga iska xaadna dawladda hoose waxaan ku codsanaynaa dad inay u samayso sariibada iyo xaraashkaba waxa aanu qaadano iyo waxa isma bixiyaan iyadoo xagga mucaashadana ay kulushahay xagga xooluhuna ay kulul yihiin halkaa wax isbixiyaa ma jiraan tan labaad cashuurtana laga qaado kawaanka xoolaha wax alla wax laga qabto ma jirto dhiiggii iyo qashinkii iyo qurinkii baa maxaafatada ku dhaqan magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayaa maalmihii u dambeeyay ka cabanayay cashuurta ay ka qaado dawladda hoose magaalada Ceerigaabo oo aan ugu qaban wax qabad ah haddaba si kastaba waxa ka muuqda magaalada Ceerigaabo habacsanaan ka jirta xagga dawladda hoose waa Cadnaan Cabdirashiid Ali TV-ga caalamiga Soomaaliyeed wararka gobolka Sanaag.